hay-adda NDI ayaa shilay ku qabatay magaalada Nairobi waxay ku soo bandhigtay baaritaano in muddaha ay waday oo ku saabsanaa ogaanshaha xaaladda dalka sida ay u shaqeyso dawladda iyo arrimo ku saabsan dastuurka dalka. kulanka Nairobi ay ku qabatay hay-adda NDI ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'ado caalami ah, marti sharaf ka socotay safaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo ka soo qaybgalayaasha kulankaasi halkaasi isku weedaarsadeen fikrado iyo aaraa kala duwan oo la xiriira arrimaha ku saabsan xiriirka ogaanshiyaha ka dhaxayn kara shacabkii madaxdooda. Shukri Maxamuud Afrax ayaa kulankaasi ka qayb gashay, waxayna markii uu kulanka soo dhamaaday wax ka weydiisay agaasimaha hay'adda NDI Maxamed Cabdirasaaq oo ah hay'adda baaritaanada waday waxyaabaha ka soo baxay kulanka iyo xogta ay ururinayeen muddada bilooyinka ah ee ku saabsanaa baaritaanada hay'addaasi ay waday. waa mahadsantahay Shukri. maanta waxaan isugu imaanay in aan ku soo bandhigno warbixin ku saabsan baaritaan baxth ama research waxa lagu yiraahdo Ingiriiska ku saabsan Soomaaliya, gaar ahaan kaasoo laga qaaday 26 meelood oo lagu sameeyay 54 group ayna ka qayb qaateen 789 qof, kaasoo loogu dan lahaa in wax laga ogaado muuqaalka Soomaalida ay ka qabto arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda waddanku ku sugan yahay, dawladnimada iyo waxqabadka dawladda, maxaan ku raahdaa laanta fulinta, laanta sharci dejinta, laanta garsoorka, maxaan ku raahdaa nidaamka federalismka iyo mawduucyo noocaas oo la mid ah. si marka aan u soo bandhigno ayaa maanta dadka isugu wacan. maxaa ka soo baxay marka baaritaanadaas iyo ogaanshadaas faraha badan oo aad sameyseen aadna wadeen aan filayo muddo dhowr bilood ah? waxaa ka soo baxay report ama warbixin ballaaran taas oo aan daabacayno la soo gelin doono maxaan ku raahdaa website-ka hay'adda NDI iyo cidii kale oo markaas aan la wadaagi karnaba intaba. marka waxaa ka soo baxay waxa waaye report. qodobadii ugu waaweyn maxay ahaayeen? qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah مثلا reportkan waxaan sameynay 3 sano. 2010 waa sameynay, 2011 waa sameynay, kana haddana ku xigay. labadii hore markii aan sameynay muuqaalka dadka ama rajada ay ka qabeen wadankooda waxuu ahaa mid maaragtay aan yiddiilo badan ku jirin. kan hadda dadku waxay rajo weyn ay ku qabaan oo ay aaminsan yihiin wadankooda inuu horay u maray. waxay aaminsan yihiin in ay xaaladii lagu jiray dhowr sano ka hor ay maanta ka fiican tahay. tan ayaa ah tan ugu weyn oo la taaban karo fikirka ay dadka qabaan. su-aalihii badnaa iyo fikradii kala duwanaa oo ay dadkii kasoo qaybgalayaasha dhiibteen maxaa idinkaga soo baxay? ma ku faraxsan tihiin wixii ka yimi baaritaanadaas iyo waxaas aad samayseen? wallaahi baaritaanka ujeedada ugu weyn oo aan ka leenahay sidii halkan kelmadii furitaanka aan ka eri waxa weeye badanaaba dowladaha adduunka ka jira waxa ugu weyn oo caqabadaha ka mid ah oo ay qabaan waxa weeye sidii ay ula xiriiri lahaayeen, ula qabsan lahaayeen, u ogaan lahaayeen fikirka shacbigooda ay ka qabaan dowladda, fikirka ay shacbigooda ka qabaan arrimaha ay dowladooda fulinayso, iyo xataa fikirka ay ka qabaan shakhsiyaadka dowladda ku jira. adduunka intiisa kale waxay leeyihiin nidaamyo kale oo u ogolaanaya in taas ay suurto gasho. for example, tusaale ahaan waxaa ka mid ah marka madaxdu ay u tartamayaan xafiis madaxweynenimo iyo wixii la mid ah, waxay sameeyaan campaign ama tartan ay kaga qayb galaan, kaasoo ay kula kulmaan shacbiga intiisa badan, kaasoo ay ku sameeyaan ballanqaadyo, kaasoo ay ugu sharaxaan waxay u taagan yihiin. laakiin Soomaaliya xaaladda ay ku jirto uma ogolaanayso in madaxda la dooranayo ama imaanaysa in ay nidaam noocaas oo kale u soo bandhigaan dadka fikirkooda, umana ogolaanayso dadka inay ku express gareeyaan ama ay ka turjumaan fikirka ay ka qabaan shakhsigaas ayagoo codka doorashada ku ridanaya. marka waxa ugu weyn oo annaga aan ka gaarnay waxay ahayd sidee ugu suuragelinaa madaxda Soomaaliya inay wax ka ogaadaan shacbiga wax uu ka qabo. taasaa marka annaga natiijada ugu weyn oo aan ka helnay ay tahay.
إن sidaan idinkugu sheegayba horaantii warka la idinkugu soo gudbiyay barnaamijkan ama isku imaanshadan ayaa ku saabsanaa baaritaan ama research ay sameeyeen NDI oo ay ku ogaanayeen sida Maxamed ba uu sheegay dadku ay u arkaan madaxdooda dastuurkooda iyo waxyaabihii ka soo baxay baaritaankaas taasoo ahayd midiyada diila badan muujisay ana filayo wax badan in loo baahan yahay in arrintan oo kale lagu dhiirado lana sameeyo